وراها شرفت له برلمان الصومالي وحنا شيء ظروفها أصلا وكجرنا شغلة سوينا وإنه طالع إن دمشترنا باسمه محاكور هذا دولة دماغ وحي كدنا arrimahaas aan sheegay challengeska ama taxadiyaadka nahoriya la awgeed waxaan ka baaqday shirkii jamciyadda qurumaha ka dhaxaysay General Assembly ka socday magaalada New York iyo shir Soomaalida u gaar ah oo waliba 26 bisha maxaan ku raacay sidoo kale lagu qaban lahaa magaalada New York oo ay ka qaybgeli lahaayeen dad madax oo mas'uuliyiin oo caalamka oo dhama shirkaas oo Soomaaliya oo khaas ah laakiin markaan ajendaha shirka iyo draft communique-ga inuu ka soo baxay rajaynay aan arkay oo barbar dhigay duruufaha maanta gudaha ka jira iyo challenges-ka ma haysto markaan isbarbar dhigay waxa ii soo kormartay inay habboon tahay inaan joogo sidaas daraadeed waxaan go'aan ku gaaray inaan joogo oo aanan bixin oo aan challengeskaas iyo taxadiyaadkaas dhulka ka jira aan muxuu ahay horkaco sidii ay u xallismi lahaayeen ama dhibkooda loo minimize gareyn lahaa oo aanay noogu noqon lahayn wax dhibaato weyn oo cawaaqibkeeda nagu dhib badan yahay ay ka yimaadaan aad iyo aad ayaan ugu kalsoonahay ilaahay idankiis inaan xallin karno ama aan ka gudbi doono anagoo kaashanayno dadka Soomaaliyeed ifafaalo badan oo qurux badan ayaa aniga iga soo gaaraya dadka oo in ay diyaar u yihiin in aanay dhicin yani waxa aan ka cabsanayn waxyaabaha aan ka cabsanayno waxaa ka mid ah inaan fitrada yarta ee kala guurka aan ka gudbi kari weyn oo duruufuhu ay nagu kalifaan inaan muxuu ahay culays badan oo qaadi karno yimaadeen laakiin markaan dhageystay oo aan la kulmay dad badan oo Soomaaliyeed qaasatan ganacsatada Soomaaliyeed waxaa ii muuqata rajo weyn ayaa ay gashay oo inaan mushkilada ka gudbi doono hadii aan leeyahay annan gaari doono lacag fara badan anagoo haysano muhiimadena koowaad dabcan waa amniga meesha hadda challenge ugu badan oo naga haystana waa amniga marka amuurahaas na way socdaan xalintooda damintooda toosintooda qorshe u dejintooda tii kale oo dawlad dhisid ay ku dhinac socotaayo prime minister kiisa oo magacaabistiisa iyo selectionkiisa taasoo bilaabatay laakiin si rasmi ah usbuucan aan u guda gali doono waqti aan noo haray ma badna laakiin waqti aan haysana laakiin duruufaha jira ay noo masaamaxayaan inaan sugno ilaa maalinta ugu dambaysa xigmadna kuma jirto inaan sugno ilaa maalinta ugu dambaysa sida ugu dhaqsiya badan ee suurtagalka ah ma naqaano wali ma garanayno wali waqtiga ay nagu qaadan doonto iyo inta aan consultation-ka dhammaystiri doono iyo sida aan hadba qofkii appropriate-ka ahay oo noogu soo kormari karo dad badan oo Soomaaliyeed ayaan haynaa ayaguna soo approach garay qaar aan anagu approach garayna oo aan weydiinay inay taariikh nololeedkooda iyo waxoodina siiyaan si aan u helno at least list aan ka doodi karno waxaan karno quality-ska iyo criteria dadkaas lagu kala xulayana waxay ka soo bixi doontaa la tashiyada dad adigu aad hormuudka aad ka noqon doontaan hadii alla yiraahdo